waxa aanu nimi qiyaastii 30 daqiiqo oo keliya gudahood isaga oo dagaalku ku dhow inuu qarxo. Israa'iil waxay isku dayday inay cadaadis saarto Barack Obama, madaxweynihii hore ee Maraykanka, inuu weerar militari ku qaado dalka Iiraan. Sida uu sheegay xogayihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken, waxaanu yidhi hogaamiyayaasha Israa'iil waxa ay ka digeen in ay weerari doonaan haddii Washington ay diiddo. Obama waa diiday riixitaanka dagaalka isaga oo ku doodaya in habka ugu wanaagsan ee loo wajaho barnaamijka nukliyeerka Iiraan uu ahaa diblomaasiyad aad u muruq badan oo ay taageerayaan cunaqabatayn caalami ah halkii ay ka ahaan lahayd tallaabo militari oo degdeg ah. Mr. Blinken ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Maraykanku uu ku dhowaaday inuu galo dagaal goboleed ah kadib weeraradii Oktoobar 7, markii saraakiisha Israa'iil ay bixiyeen macluumaad been abuur ah oo ku adkaysanaya in Xisbullah ay ka soo weerari doonto dhinaca Lubnaan oo ay diyaarinayso weerar ka hortag ah. Sida laga soo xigtay Mr. Blinken, Washington waxay timi qiyaastii 30 daqiiqo gudahood khilaaf cusub ka hor inta aan xaaladda la joojin.